waxaan ku bilaabaynaa magaalada Gaalkacyo halka maamulka Puntland oo laba maalmood u qabtay inay isu soo dhiibaan ciidamada ka baxsan maamulkooda ee ku sugan deegaanadeeda. Dhanka kalena maamulka Puntland ayaa war ka soo saaray dagaalkii magaalada Gaalkacyo. Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa degan caawa kadib dagaal maantay lagu kala qabsaday xiro military oo muhiim ah oo Puntland ay sheegtay in dib gacanteeda ay u soo noqotay. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dagaalka ayaa eedeymo u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo intaasi ku daray in ujeedadu ay ahayd in gacanta Puntland dib loogu soo celiyo xiradaas. Dani ayaa sheegay in xirada ciidamada Puntland ay beegsadeen ay muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ku ururinaysay sida hadalka ay u dhigtay hub iyo saanad ciidan. waxa ugu baaqay dhammaan ciidamada PSF ee weli ku sugan deegaanadeeda kala duwan ee Puntland inay isu soo dhiibaan kuna soo laabtaan sida uu hadalka u dhigay nidaamka sharciga ah. Qasaaraha ilaa ay hadda la xaqiijiyay waxa ku dhintay hal qof oo rayid ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo sidoo kalena ugu yaraan 5 askari ay dhaawac ahaan loo geeyay isbitaalka magaalada Gaalkacyo. dhammaan dhalinyarada kaleeto ee gobolada Puntland jooga ee nidaamka ku jiray ee warqadaha beenta iyo biometriga beenta laga buuxiyay ee ku andacoonayeen inay federaal ka tirsan yihiin Puntland ciidanka jooga waa ciidanka Puntland maanta ciidan kale oo ka jira ma jiraan waxaan rabaa dhalinyaradaas inay ciidamada dawladda Puntland ka mid noqdaan isu soo dhiibaan nidaamka dawliga raacaan cidii ka dhaga adeegta jawaabahaas la mid ah helaysa waxaan rajaynayaa inay saraakiishuna ka shaqeyso meelaha ay ku sugan yihiin oo dhanna ay ciidamada dawladda la shaqeeyaan sidii hore u la shaqeyn jireen cidii aan ciidan ahayn oo ciidan aan rabin danaheedii ay qabsan jirtay ha qabsato Puntland waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliya dawladnimada Soomaaliya waxay adkeynaysaa nidaamka dawliga curdinka ah waxay hormuud u tahay nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliya ugu dabaan dhanka kalena Jubaland ayaa eedeymo culus u jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay tilmaantay in hurinta xiisadda Gaalkacyo ay qayb ka tahay. Maamulka Jubaland ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalka ah inay hurinayso sida hadalka ay u dhigtay colaadda iyo xasilooni darro ka taagan deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in Jubaland ay si adag ay u cambaaraynayso waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin si hurinaya xiisadda ka aloosan Puntland. Waxaa nasiib darro ah in iyada oo ciidanka xoogga dalka ee dagaalka kula jira argagixisada ay heli laayihiin hub iyo saad ku filan si ay u difaacaan goobihii ugu dambeeyay ee argagixisadu kula dagaalameen gaar ahaan gobolka Hiiraan. haddana hub iyo agab ciidan lagu daabulayo deegaanada nabdoon oo ay ku jirto oo ku jira amni iyo kala dambeyn ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ee maamulka Jubaland. sidoo kale madaxtooyada Jubaland ayaa waxay sheegtay in tallaabooyinkaasi ay qatar ay ku yihiin nabadda xasiloonida iyo wada noolaanshiyaha bulshada isla markaasina ay wiiqayaan horumarka amni iyo dib u heshiisiinta laga gaaray magaalada Gaalkacyo muddadii 10 sano ahayd ee la soo dhaafay. maamulku waxa uu sidoo kale u bogaadiyay sida war-saxaafadeedka lagu yiri baraaruga iyo midnimada ay muujiyeen Puntland iyo shacabkeeda iyada oo tilmaantay in ay si wada jir ah uga hortageen sida hadalka loo dhigay qorshe dowladda federaalka Soomaaliya wado oo lagu wiiqayo amniga iyo jiritaanka Puntland. ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya kama aysan jawaabin eedeymaha uu maamulka Jubaland u jeediyay ee ku aadan hurinta xiisadaha ka taagan Puntland iyo sidoo kaleba isla warka Puntland ka soo baxay. isla wararkan hogaamiyaha mucaaradka ee Soomaaliya ee madasha samata bixinta iyo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si adag u cambaareeyay dagaalkii Gaalkacyo ee u dhaxeeyay PSF iyo Puntland isagoo sheegay in aad uga xun yahay qasaaraha ka dhashay qalalaasaha amni ee magaaladaasi. waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu mas'uul ka yahay sida uu hadalka u dhigay xiisadaha siyaasadeed iyo rabshadaha hubeysan ee ka taagan qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan Gaalkacyo. sidoo kale Shariif Sheekh waxa uu ugu baaqay shacabka wada noolaanshiyo magaalada Gaalkacyo in si wada jir ah ay uga hortagaan falal uu ku tilmaamay kuwa lagu kala fogeynayo bulshada isagoo sheegay in nidaamka hadda jira uu horay dagaalo la mid ah uga horiyay sida uu ku andacooday dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Jubaland iyo Jubalandba isla markaasina aysan habboonayn in shacabka Soomaaliyeed ay arintaasi indhaha ay ka daawadaan.
isla wararka Jubbaland haddii aynu ku sii socono haddaynu eegno markaan maamulka Jubbaland waxa uu ka hor yimid shir xasaasi ah kaasi oo looga hadlayay amniga iyo kalluumaysiga Soomaaliya kaasi oo bayaan culus ka soo saaray wasaaradda kalluumaysiga maamulka Jubbaland ayaa sheegtay inaysan aqbalinayn in kheyraadka badda lagu maamulo heshiisyo aan sharci ahayn war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay in aysan aqoonsanayn shirkadda Somtalk oo ah shirkadda si wada jira u maamulaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Turkiga iyadoo oo ku dooday in shirkadaasi aysan haysan heshiis sharci ah oo ay kula gashay maamulka Jubbaland sidoo kale wasaaraddu waxa ay ku baaqday in la ilaaliyo shuruucda iyo xuquuqda maamulidda kheyraadka badda sida hadalka ay u dhigtay wasaaraddu ma aqoonsana aasaaska iyo howlgelidda shirkadda Somtalk maadaama aysan wax wada tashi ah lagala yeelanin Jubbaland intii lagu guda jiray dhismaheeda daafurkeeda ama hirgelinta howlaheeda ayaa lagu yiri bayaanka warka ka soo baxay wasaaradda ayaa imaanaya xilli Muqdisho uu ku soo idlaaday maantay magaalada Muqdisho shirweynaha koobaad ee badaha Soomaaliya kaasi oo Jubbaland iyo Puntland oo kaliya ay ka maqnaayeen waxa ka qayb galay shirkan wasaaradaha dekedaha iyo gaadiidka badda ee maamul goboleedyada waqooyi bari Hirshabelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu dambeyntiina Djibouti ayaa waxay ka hadashay in ciidamadeedii sii joogi doonaan iyo in kale gudaha Soomaaliya kadib markii wafdi sare ay u soo dirtay Muqdisho dowladda Djibouti waxay sheegtay inay sii wadi doonto ka qaybgalka qorshaheeda howlgalka midowga Afrika ee u Soomaaliya isla markaasina diiradda ay saarayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab hadalkan waxa uu yimid kadib markii wafdi sare uu hogaaminayay taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Djibouti Zakariya Sheikh Ibrahim oo kulan la yeeshay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud kulankan oo ka dhacay fil Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga amniga ee labada dal gaar ahaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale waxa looga hadlay caqabadaha dhaqaale ee haysta ciidamada midowga Afrika ee AUSOM iyadoo saraakiisha Djibouti ay cadeeyeen in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan gudaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dowladda Djibouti uga mahad celiyay doorka ay ka qaadanayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo dadaalada nabadeynta ee Soomaaliya ciidamada Djibouti ayaa kamid ah kuwa midowga Afrika ee AUSOM waxaana ay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo Galmudug qodobkaas ayaa ugu dambeeyay daawadayaal barnaamijkii wararka Soomaalida kulan dambe ee nabadgelyo